waxaa jira nin rabay inuu guursado laakiin gabdhaha waddankiisa dhan joogo way cajibin waayeen. mid walba wuxuu ku sheegay tan waa saan, tan waa saan, tan waa saan, ilaa uu waayey mid asigaba indhihiisa buuxisa. ugu dambeyntiina wuxuu go'aansaday inuu ruushka aado oo xagga gabar ka soo guursado. haddaba ninkan maxaa u dambeyn الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولجيكتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصب. قصة لنا ما أنت وقصة أبو دعضي لقنا يا أبو دليرة قاركوذا وقت يعني إني حتى هايسته. قصة ده محي كود عضي نين سعودي يعني كود عضي أسيجان قصة كشيكين دونه مركي دنبو wuxuu yiri markaan soo weynaaday hooyaday aabahii way imaadeen waxayna wiilkay waxaan rabaa inaad guursatid oo aan kugu faraxno. waayahayaan dhahay qof kasta markii hooyaday ii sheegtay ama liikeen waxa la may tan waasaan tan waasaan tan waasaan adiga waxay qaadatay 5 sano ka badan mar walba qof markii liikeen waxaan dhahay iga dhaaf mid walba cilaan u sameeyay. wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah waxa soo wacayaan saaxiib ahaan jirnay oo mutawwac sheekho ka wada ay soo wacay markaasuu yimid wuxuu rabay inuu igala sheekaysto businesskii iyo wixii markaan shan u wada fadhinay maskaxdeeda meel kale jirtay. ninka wuxuu yiri maxaa kugu dhacniyo mas'uulsan you attention maxaa kugu dhacay markaas wuxuu niyo maskaxdeeda meel kale jirtay ilaa 5 sano waxaan raadinay gabaraan guursado oo say wax u jiraan saan isaan markaas wuxuu yiri aniga sheeka fiican ku waxaan ku dhahay saaxiib iga gaar wuxuu yiri ruushka waxaa joogaan gabdha aad u qurxan waxaa jirta tuulo ku taalo magaalo hebel ku taalo kulligood muslimiin yihiin ma sha Allah gabdho qurqurxana ay joogaan xagga aad imaamka masaajidka oo u ah sheekha oo ah leaderku amarkiisa ay qaataan saaxiib ruux biruuxaanahay marka mooska ka degtina qofaa ku qaaday tuulada ku geenaya ee isoo diyaar. wuxuu yiri maalmo kadib waa diyaar aan noqday because qof dedegsana ahay fiisadaydan qaatay tigidkaygan goostay ninkii aan u tagay waxaana diyaar ahay nimankii numberkiisa isiiyay ninkii aan waxaana soo socday nin oo Sacuudiyaan u ahay hayuu yiri airportku iga qaaday inteen ku geeyaa markaas waxaan dhawr tuule hebel igey markaas aan dhawr yiri maxaa dhaw waxaan dhawr may ana rabo tuule hebel igey suu ii wada tuulada hebelkii u geey. tuuladii markaan tagay waxaan bilaabay marka hotel inaan raadsado hotel waxa isaga yaal hotel yara isaga yaal motelka kala ku yaalo meeshii aan tagay ninkii aan la kulmay salaamu calaykum ya afahamsiina asan ruush ku hadla aniga carabiyan ku aqaana english hatta ma aqaani cilmi muxuu finally qolan ka helay. ninka hotelka markuu baasaboorkayga arkay wuu farxay markaas wuxuu yiri ahfaad saxaabada dadkii awoogu ahaayeen atihiin wuu farxay ninkii qolkii u dajiyay markaas waxaan dhawr masaajid intuu ku yaala markaas yiri ma sha Allah dadkiina oo jasiirada arabka imaanay ahfaad saxaab markaa timaadaan kuuba masaajida weydiisaan ninku wuxuu wax qalbiga ku jiro ma ogo masaajidka markuu wuxuu yiri waa kaasee salaada markay dhowdaan ana ku geena waayahay salaadii la gaaray masaajidkii aan tagnay salaamu calaykum markii imaamka uu gartay in tuulo yar waa dadku tukada dhan wali wada yaqaanay keligii ayaa qariibka ah oo u tagay oo isoo fiiriyay markaas salaamu calaykum markaas waxa ku dhahay ani hebel ahay waxaana kaaga imid طرف بالهبل أي إسود مركز وحول ما شاء الله عربي فصحى يقول هطلو ده يعني نحو عربي فصحى أساس مو أقاني المهم وحوي رسالته ما في عنته وحمة وتي مركز أنا حاد أنا ركالها مركز صبح وتوسو قدينينا ورسكنا ما والله إلى أن قدينا ما هاد ليست قددي أوكي مركز سو قديني كدب أيام وحوي هي وادك دكسنتي سي وحجران مركز أنا وحان ده أنا وحمشهم إنا نكورسو ده نيك وحوي جزيرة العرب كيماتي صحابة وحاتي عرورتي أو تاتمد أنت تاتمد إنا قوستي تا ما شاء الله يابكو هلي كرو ديار واي جبر الله جبر داربتي على ميسو إيشك أنا كو دونا يقفكو سودي داينه ملحن أحفاد الصحابة يا هلي كرو ما كان قديني كدي بدن وحب بالله إنه سؤالي ويديو يرو لكن وحاجر حال أرين أيار ربا إنها كاهو بصدو أنت أنا كو يدينين أنا كو كحينين markaas aan dhahay yiri maxaa waay markaas wuxuu ugu yiri quraanka ilaahi meeqa jusa ka xifdisantahay ma asiga dhana wada xifdisantahay waxa laga yaabaa jasiirada arab maadaama ka timid ahfaad saxaaba tahay waxa loo baahnaa quraanka inay xifdisantiin laakiin maadaama duruufi waxa iska jir meeqa xifdisantahay iisha ninkii wuxuu yiri su'aal aan filayna markaas aan dhahay yiri ma dhahday ma fahmin quraanka ilaahi meeqa xifdisantahay iyo markale igu celi markaas aan dhahay yiri ninki wuxuu bila madaxna maxaa meeqa xifdisan su'aalan ku weydiiyay
markaasaan waxaan dhahay inaan garo markaasaan waxaan dhahay yiri jiscama ninkii imaamka ruushiyaanka wuxuu yiri laa hawla walaa quwwata illaa billah laa hawla walaa quwwata illaa billah ninkii waan wuxuu rasuulka ciibeen maqaayaan joognaa tartiib isdajiyaan dhahay yiri markaasuu yiri laa hawla walaa quwwata jiscama موالنتا عروت حتى محفظ سنة عروتها محفظ سنة ماشي أنا سيكان نقول جزء عما مركز أنا جزء عما حفظ سنة ومصي شاهو عبا يدول كود دقي وحيرو فكر كدي بحير أوكي قهر ما ديارتها ما حد دياره إن أكو امتحان جزء عما نفتر كيس أنكو امتحان مركز أنا وحنا إن شاء الله بري أنكو إيمانا وحير إسلا قلبتي وصوب حي هوتيل كإيمادي كتاب أو 6 سنة ميل أنف كلافورين أو بورصة اللي يوجرين سوق هذا الكتاب كان كلافورين هبين كده سووا أقرنا عندها يمدو بعد وراحي صبحيا لقاري مساجد كان تجي شيخ يجي مركز يقول كاله هي أقري ومحا أقري يا جزء عما ما يوحنا ما أقرنا سؤال ويدي صورة سوق هذا هل مركان كجواب الله باللي صح هل مركان كجواب الله شيخ مركز إنه حنا وكتاب كلا الله مركز يقول وقتي هدومينين كاجن هدومينين محا حفظ سنته أي شيء مركز أنا حنا أفرت بيج أو قدام بيسو أو جزء عما مركز أنا يقول نيو وقتي أنا أسكت مس إيشك محافظ سنة مركز شيخ ورنتهم كوشيجا أنا محافظ سنة هاي قل هو الله قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس بس سورة الفاتحة أو حكوا أقرأ صلاة مركز إنه كتابك كلا لا يقول يري قول ما ربطين عن نقطة مركز أنا هل كأن نقطة ودن كهكتم سعودي قول ما ربطين أنا أكون نقطة والله متهين وير أحفاد الصحابة متهين صحابة إذا كانوا واحد إذا كتحيا هبيراتي ما جرتي قول ما ربطين عن نقطة ما باسان كو دياريا مس ديارة ماشان كراعيسا مركاسان waxaan ku dhaho yiri guurkii iyo wixii aawe markaasuu yiri wallahi gabarku aqbalaysa meeshan hadda ma joogto yiri gabadha ugu sareysa ama gabadha ugu hooseysa hadan ku geey familkeeda way ku soo tuuraysaa an hay ceebeen adin hay ceebeen magaaladan iyo markale ku arkin ruushkan waxaan rajeynaa inaan markale ku arkin niyo orod meesha ka timid inaan isku xishooday aan hoos fiiriyaan hal mar soo istaago aan dhaho yirmay anaa baxay bas waaye waa iska soo baxay boorsideen soo qaatay gaariyaan soo qaatay airport-ka imaade toosan ugu soo noqday Sacuudiga ugu soo noqday yiri kadibna laba arrin aan sameeyay gabadha wadankii mid kamid oo alxamdulillah inaan dhaha hooyo iyo doonda gabadhiya li doonay waa guursaday ilaahayna waa ii barakeeyay tan labaadna waxaan ballan qaaday inaan ilaahay kitaabkiisa aan saas u dhaamoon xifdiyo على الأقل هدان وذي حفظين كرين جيسوس بدن إنان كحف وقدام بينتي ولا عليا القصة وحاكو جرت فائدوين عادو ترى بدن قار كمدها إذين شيئا إذي كانوا حايدين كرجينا إنت كالو إنا سوق قرطان خير الله إذين سيه فإذا ذكوبات أقو قرآنك إلهي إنو شرفكو سمينايو كركو قاضايو هذا الإلهي قفكي حفظيو إلهي أدونو كحفظنا هو شرفه سمينا ميل والبأسيقا أقو سريو آخر مركي لقارني جنة مركي لقالو إله وحو كلية اقرأ ورقة ورأقري أو كرؤك مركز تأقرسيد آيات أقرسيدنا قرآن سيدا درتت قرآنك هلو دذالو فإذا ذا لباد قناعة قفك إنو وحو إلهي سي كقنعي وكنز لا يفنى سيدا النبي صلى الله عليه وسلم نوشيغي أذيقا ومدام مسترنت أذيقا بقل متهيد هرادين كبر بقل كيما بقله إنا هشيد هرادين وقتها هسكدو مني فإذا ذا سدحات قفك مسلم كأه أو كرشتي مسلمين أبا عن جد هأوغادو مركا ميل كالتمادي مسلمين تكو يريهين إني كو هايستان قف سرائناتهد سيدا درتيد وحاحا وشاي أما كتلك شاي إسلامك إنا سفي عن أمة تشيد دين تأد كل قنتيد حمان تأي خيانة إي بين تنعد إسك إلالسيد فإذا ذا أفراد أقو دين تنقف كاحيقا لا عربا كاحيقا ولا عجما كاحيقا لكن وحا أقاتا اللغة العربية قفك مركو برتو إنه قرآن كسيفي عن أفهمه تاس معنى هذا معه إنه كافر لبذينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيام نوشي كل جينا آدم إنا لقى أبوري آدم نعر لقى أبوري إلهنا كتابك سبحانه وشيء إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا ذا شنات وحاد حسوستا marka jannada gashid oo ilaahay ku yiraaho quraanka aqrisa kor u aadid ila intee aqrin doontaa ma intaana aqrinaysaa mise meel sara tagi doontaa hadda jaanis haysatay su'aashaas isu jawaab jannada duu ilaahay igili oo nasiib u yeeshto ilaahay igiliyo oo quraanka aqri dhaho ma juz amaan ku istaagi doona ma juz tabaareen ku istaaga mise juz qad sami'an ku istaaga
mise baqaraan gaari doonaa? su-aashaas jawaabteeda adiga la isweydii, adiga lana isu jawaab. faa'iidada 6, 7, 8, 9 ilaa 10 wad soo qor, ha bakhiilin. dad badan waxaa jira faa'iidooyin soo qor oo aniga wallahi ka faa'iideysto markaan kusoo noqdo aqriyo, ilaahay khayr ha siiyo, dad kalena way ka faa'iideysanayaan. bakhiil ha noqonin. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ولالهين كلنا أسي قدبية وإنه جمعة صوصعتي قصة عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.